A is for Allah, nothing but Allah. Ba is the beginning of Bismillah. Ta is for taqwa, bewaring of Allah. And Tha is for thawab, a reward. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وعلى آله وصحبه وسلم. وتضبط توكل بشي سجالات مبكون يتبان واحد جولا دبي دار لا يرانو هو الفاورس وحقق الجلسين على الأشياء بلد نور فوديشن أو هاك واتر كاها وكجرو معموله هذه عبد توبه waxaan rabaa inaan qof ula kulano talana idin farayaan waxa jooga halkan kamida Umar Haji Faarax oo aniga tagaya abti waxaan weydiinaynaa talada oo diray dhalinyarada Yurub joogta insha Allah kamarada xaqiisa ku jeedinayna wada tafadala sidaas naga cusubay afkiisigaasi oo ka yimid doonaya inuu nala kulmo meesha anagoo shirku leh oo ka hadlayna arrimihii Noor Foundation oo loogu talagalay qabadka degmooyinkii reer Qandala sidii loo qaban lahaa waxyaalihii loo qabsoomay iyo waxyaalihii loo dhimay kooda hadlayay oo naga codsaday waana bixin inaanu maaragtay u jiro qolooyinkii reer Qandala ka tirsanaa iyo wixii kaleeto ahal ah sidii ugu soo hawlgeli lahaayeen dadkooda iyo dalkooda iyo ehelkooda intii u baahan oo waxqabad u baahan waxaan idinku horinaynaa annagu saa la socotaan dhalinyarada halkaa fadhida waxay ahaayeen asaasiyaashii abuuray Noor Foundation in maaragtay ay isu keenaan intaasoo ummada maantana ay meelaha maqlaysaan gaarsiisan tahay دور ميلود وهذا ما تمهم أنا قصو قبتي سكون في عندنا يبقى يدي عرمو أنت أصلا ميلود وما ركتي قصو قبتي دون عينا إني كسر كرديان أو شيء بسيطة تقلق بيكبر عنها هيك عن ذلك يبدو النوجر أو كذا يعني هذا يروح لنا يعيش يروح يكمل ونيامه وحقله يوقف عن يدك waxaan idinku codsanaynaa si hagar la'aan oo dadaal ku jiro inaad u soo hawl gashaaneen waxqabadkiina muujisaan taageero xoog leh ka baahanahay dalkii waana idin salaameynaa sidaas iyo nabadgelyo iyo waxqabad fiican odaygu aad buu mahadsanyahay waxaan قبل هاي الوضع دليرنا مركز لو شيء دليرنا دول كأي جوجا وعدونا هرو مرسان سكولنا جامعته هو بلاش مركز أبتي مركز لكم عليه إنه ضد كاتب بوريو إن أنا ماشي كجرين دولة واحد ضد واحد بتكون رأيه كسوية وارنوا يوم وقت وحلا جاي أبا إن درين ثاني مكان سكول يكهل لنا عافمات كل أجوب ثاني عافمات سكولكم بلاش لكن النجا وعواية دولة Soomaaliya oo darkii ka jira ma jiro cid kasta oo Soomaaliya oo meesha ay ku nooshahay iyada dawladdu ah iyada maamulka iyada wax qabsata hadii waxa waaye waxay aad u aragtaan degmooyinkeena waxa waaye degmooyinka ugu dambeeya qabad loo qabto inta kale waa laga wada hormarsan tahay laakiin waxa aan ka dhiidhinay oo aan aragnay dadka kale oo nala mid ah wax qabsanaya oo degmooyinkoodii horumareen annagina dib u dhacay marka hadii sidaa darteeda naga keentay inaan maaragtay yani idinkana idinka soo codsano qabad annaguna aan u kacno dadkayga dalkayga horumar saan u gaar marka waxaan idinka codsanaynaa dhayalsanina hadalkayga yaa dalkii dowladda ma laha shacab u maqan oo hadda maaragtay dadka taagan annaga isaga mid baan nahay shacabkeennii iyo dadkeennii dhalinyaradii waddanka ku noolayd iyo maxaan kuu sheegayay ubadkii soo kacayay dambeed waxbarasho ma haystaanin caafimaad ma haystaanin tariikh ma haystaanin biyo ma haystaanin intaba waxa laynoo ka baahan yahay inaan ka gudbo oo ka qabano baa loo baahan yahay marka sidaa darteedaanu arrintaas aan aad idinku boorinaynaa inaad hawl way ka qabataanin si fiican isugu taagtaanin oo waxqabad
اوكي aad u maasanyahay abdiqaashe waxaa dhinaca ka fadhiya abshir maxamed laga badane abshir waa dhalinyaradii loo igmaday bashiir saare iyo maxamed cabdiwashe isagana asa wargeysaa ka doontaan waa dhalinyaradii loo igmaday inay dhulka qandala oo dhan soo sameeyaan sanadkii 2009 iyo 10 haddaba bashiir sida uu sahankaasi ugu soo roobay iyo dhulka u tagay isagana waa kan بسم الله الرحمن الرحيم أنا وهو حسن كي مراد دري أو نور فونديشن نور كساتي إن عم دتك وعيقلين سينو إن أسكول الحمدلله لقى فرايو مركو وهو الرئيسة إن دتك ودك أول شيء أو يهان كأيو محايسة كذا دراسة كذا أسكول جيرين وعيدا كالجون إن أي أركان دراسة الدولار إن دتكني مستقبل كودا الجنريشن هذا سوسة إن هدي أنا وخبران أو دتك أنا لجان قادين إن أي نقول دونان حمالي واردية دريولو يودد نوع عصو خلطة ودد كلامك شغالو نقول دونا داس واحد يريد جلسين عن ودد كل شيء منو اللي بمرك اللي يرويل كعبة حمالي ولا قاعد يقول دونا وفدي دي واحد أرد عصو نصور ودد كي إلى شو تاجان وسكول كي ودد كي عم كفل إني إني يمادان ودد كبدنا يسوق هذا وأنا إن شاء الله خطوة ناجحة مركا واحد هاي أرنتو إن لو بيجو ما في واحد من قبسان كرنا بيجونه وقبسان كرنا اعتماد على نفسه إن أنا نو سكوت تشرنا وجيل الشيء نصوص على سيدي ضدك وحولك قبسان هاي سكوت تشرنا وحكفي عنها بري نقول بيشنا إن أنا ودك يكون نقولنا وحلا عن قبان كرنا وحنا عن تركرين أنت سنفسه قبل قبيني dadka isticmaala bulshada ama sameeyo Google oo waxbaara markii ay arkaan sida loo dhisay ama loo balaamiyay webpage-ka Nur Foundation waxay soo jeedaan xaqiiqiin marka halkan waxa jooga nimankii lahaa fikirka Nur Foundation waxa la yiraahdaa Cismaan Nuur Axmed oo bidixdeeda fadhiya iyo Abshir Aadan Cabdiraxmaan tusbaxle oo isaguna dhinaca fadhiya bal marka hore Nuur baan ku Cismaan baan ku horeynaa waxa Cismaan oo isku kala fayna asaasan Nur Foundation ama ku Foundation waxaa lagu kalifay dhibaatooyin ka jira deegaamada ee dadka ku qodisano markii wax badan aan eegnay oo daraasaynay inay jiraan habacsanaan badan oo ka jira deegaanka markaan eegnay bulshooyin kale oo ay la noolahay deegaanka nool iyo qaabka ay horumareen waxaan istusnay marka inaan isku dayno in wax la qabsan karo oo dadku ay isku dishan karaan إلهي حمديس يعني أرنتاس محمد لون الدحي إلهي ما حدا إسكاله أنا مركا حضرت مركي أنا صلاحين أرنتا أنا كفعيني أرنتي بلو بيحيد حلقها بيجاري اسمع الله الحمد لله رب العالمين إلهي ما حدا إسكاله كبعدنا أنا هدي أنا أعرف سوجي إنه أرجع أوصل بنيني رج ما وقت طيب بدن أو أقوم بدن أيها هوشي كعنت كل جي إلهي ما حدا إسكاله مركا أنت أنا أنت وحوي وحي مريسا دونك داقيسا إنه يا معنا لقوا ورقبه حتى إن شاء الله وحنا ندينا ميال كسفي عن ماشي مريسو مركا المهم وحا برنامج كان نقول لي باهدة يضيع يبربر كجل الديان صمعنا ما بربرسن لكن كان الديان كانوا سيجارة يبربر سيهاي والضم له عافمات ملء سوال ملء بيم ملء كرهبات ملء ما إن شاء الله وهذا واحد برشوا على الجوال لكن وحنا إن شاء الله رجينا إن تقدم الله إن شاء الله لو بدنا وكين صوتوا وبلا توفيق السلام عليكم ورحمة الله waxaanu Cismaan oo booqan doonaa insha Allah bisha February wadamada Yurub UK Scandinavianka waxa wadamada ku nool dhalinyaro asal ahaan ma garoonkooda iskuulka ka soo bilaabay iskuulka Cali Faayiga waxa uu diray barnaamijka وأرن مهم وحوي waxaan u dirayaa dadka wadanka u maqan oo ka maqan oo ay hor u dhashay wadanka u dhashay dadku waa nin u dhashay iyo nin ku dhashay dadka raaqan dalka atasada waa nin u dhashay iyo nin ku dhashay marka waxaan leeyahay nin ku dhashay nin u dhashaba dadkii dalkii waa inoo baahan yahay dhinac kasta ha noqoto waxa weeye sida aad ugu xisaabtantaan ilmihiina يعني أرموها إن ضدك ولا له هنا أو طوالي سنة وحصة ثمتان ووحي كران كده جيس ثان وأنت اسمه فلان. وقرت لنا كلنا وحى إغفر يا أبشر آذن إبراهيم تصبح له
أبشر سنة وحو كم يا أساس ياشي فكر كاس كلها أبشر هذيك ما حكوا لي إلا سمي نور فوديشن. بسم الله الرحمن الرحيم. نور فوديشن وحنا نظام قندرة dhibaatooyin ka jira markaan eegnay deegaamada kale sidii wax u qabsadeen iyo deegaankeena oo wax laga qaban dowladda dhexna burburtay wax maamul ah oo jira intii burburka ahayd oo gacan ka geysayna aan jirin deegaanku marka dhibaatooyin gaar la yahay baa soo baxday ka mid tahay waddo la'aan iyo waxbarasho la'aan iyo haddii ilahay adeegga bulsho oo dhan oo dhiman koronto la'aan xawaalada la'aan ganacsi la'aan maamul la'aan dhibaatooyinkaas oo dhan markaan qiimeynay aniga ninkaan saaxiibka ismaan nur la yidhaahdo muddo badan waanu ka shaaweynay inaan qiimeeya kadibna waxaanu go'aansanay inaan soo bandhigno arrintaa arrimahan ugu kalifay inaanu go'aansano inaanu arrintaa wax ka qaban karno waxaanu tixraacnay sidii deegaanka cali sinama odayaashii hore isugu xiraayeen oo wax u wada qabsan jireen inay ahayd qaab isku xiraaneed haddii dadka la isku xirona guul la gaari karo oo wax la qabsan karo kadibna waxaanu qorshaynay inaanu dhallinyarada oo dhan wacyigelinno beeni joogaaba ilaahay mahadiis ilaahay oo loo guuleeyey waxaan markii hore isku helnay tira 10 dhan oo adigu ballan qaada inay arrintan go'aansato inay horumariso kadib waxaanu helnay xoogga labaad nooga yimi 3 nin oo saaxiibada ah uu ka mid yahay cabdiqaadir tuube axmed yuusuf cabdoosh nimankaas oo muddo iyaguna ku taahayay adigu fakarka in dadka la isu keeno oo arrinta la fuliyo in baan uga hormaray laakiin in wax laga qabto iyagaa nooga horreeyey waxay hataa go'aansadeen inay siday noo sheegeen inay saddexdood wax ka qabtaan haddii wax laga qaban waayo kadibna go'aankii ay wateen iyo isay u jeclaayeen iyo hawshii oo aanu anagu gallay oo ku guda jirtay markii noqotay waxaanu isu noqonnay tiirar isqabsaday sidaa darteed waxaa noo suura gashay inaan barnaamijkii horey marno okay si aan u ogaano saddexdaa nin oo madaxa ku dhiftay insha allah waxa aan ku hormaraynaa axmed cabdoosh waxaa ku xigay axmed baan ku hormaraya insha allah saddexdii nin oo uu sheegay ninka la yidhaahdo tusbax axmed yuusuf maxamuud cabdoosh cabdi tuube titorkaan ku soclinaya maxay ka leeyihiin axmed yuusuf waxaa weeye agaasimaha shirkadda liibaan trading oo xagga dhismaha ka caawiya sawirkiisana hadda arkaysaan axmed maxaa dhallinyarada u diraysaa yurub waxaan fariin u dirayaa sida quruxda badan ay qolada UK isu abaabuleen waxaana aad ugu mahadcelinaynaa sida wanaagsan ee ay markaba abaabulkii sameeyeen ay u qaadeen iskuulka Boliden inay ballan qaadaan dhismihiisa waxaan leenahay dee hawsha waa halkeedii hadaaninina hawsha waxa weeye inaad dankiina ka qabataan inta ayaan fariinkaas siinaya waa kartay waxaa ku xigaya maxamuud cabdoosh waa nin iska caana kulliga waa wada garanaysaan insha allah cabdoosh baa dhalay isaguna waa ganacsade isagana hadda aad arki doontaan insha allah بسم الله الرحمن الرحيم warbixintii Nur Foundation odayaasha iyo dadkii iga horreeyay ayaa soo gabagabeeyay anigu hadda wax badan ku dari mayo laakiin waxaan leenahay muhiimaddu waxay ahayd fikraddan in ummadda wada gaadho dadku wada fahmaaniin inay wax qabsan karaan oo ay wada qabsan karaan horumar gaari karaan alxamdulillah fikraddu waa lagu guulaystay laakiin wax adag baahan tahay dabar adayg iyo dadaal badan waxaan rajaynayaa insha allahu إنه أول بمشي كسوة. السلام عليكم. أوكي واحد كانوا دين عايقة فدي دكتور محمد حلاني. محمد حلاني السوري أو سجل الله تيجي سواني دليرة أو متعلمة. كان من نور فاونديشن وأنا كلها مستحضر أحجار أصلا. السجل رواكر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
وهرين وحصلها مركو ورئيسة نيرجرتك علماء الدين ويهنذا أنت لا جوكت أنت يمكن جوكت ماشي وداونسة لما وحليها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفتر ذات دارس ونقول حاجة تبدأ نور فونديشن وفرقة مهمة ضد ما الحشري ولكم هالشيء أنا وروحنا البلدة وحنا مهم سن ضد كذا إنه هو مر يرسي على كشري أفضل فينا أول دي سبب تبرتيس إنه كرب هذا because of ذلك ضلنا ومغنا عيلنا ومغنا عيلنا ومغنا عيلنا أفضل بواحد مهم سن مسؤولين صار أفضل هذا responsibility صارين واحد يرجع يهوي لما نحن ورنايا هيريوكي أنا شو جدنايا إني وطنكي يوم مغنيين وأنا له وطنكي جوا بحب أعاون كلامي يرنا حبرشوا كل ما يكسر عاون نعم فونديشن وحنا أذوهم لينايا سيدا وناكسن واقع قاتين كنا سلويين دخل خرج كنا وصل برين هذا سيدا بردنا وكذا وحنا لهم مع سنتين وهذا واجب وحنا لنا لا شكر على الواجب تسواجب بسهراوي إذا كما علينا معها waxaan kaloo ku booranayaa ardayda wax ka barata dalka UK oo waqtiga helaysa taymka fiican haysata nabadda haysata xabadda ka soo cararnay inay taymkooda ka faa'iidaystaan si fiican wax u bartaan aanayna ku mashquulin waxyaalaha laga fiican yahay sida draagiska iyo waqti lumiska iyo madax fariisiga ay ku xisaabtamaan inay dalkooda iyo dadkooda ay u maqan yihiin taasina waa ay waano dhinaca leertana aad baan idinku hambalyeynaya waxaan idin rajeynayaa khayr السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa isaguna meesha fadhiya oo dadku u aysan kala Noor Foundation inay caawiyaan ama ka qayb qaataan Mustafa Yusuf Maxamed Xasan oo isaguna ka mid ah dhalinyarada aad soo firfircoon isagana insha Allah fariimaysi waxa ka mid ahaa baantan farax leeyahay dhalinyarada joogta UK aad baad mahadsantihiin saadoo qayb qaadatay iskuulka Balgudi joogayeen sidoo kale ayaan u mariyeenaya insha Allah xaqo meesha soo daraya taqriib bilow dhawaaqeen isbitaalkii qandala oo misay isagana si weyn loo taageero oo Yurub iyo Mareykanka iyo Dubai iyo kulli ka qaataan insha Allah waxaan leeyahay qandala waxa uu dhalatay bil hadda soo baxday aad u soo qaaday insha Allah Facebook wada inaa wax badan aynu haray wadadii iyo jaamacadii iyo howlada insha Allah hadda iyagana hawshooda ugu dhigin waana salaamaya dhammaan inta ka soo qayb gashay maanta inta ay noqonaysa waana mahadsantihiin assalaamu calaykum waxa kaloo isla jooga laga dharay sadkayga codkayga ka dharay aniga laga dharay ma isagana waxaa la jooga waxaan la joogaa agaasimihii dhammaan hay'adda Noor Foundation insha Allah oo isaga hadda chairman-kii xagga waa laga yaqaan carabiga laftiisa marka insha Allah isagana hadda ku jeedinaya Cabdikan فليتفضل يا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. waxaan u maleynayaa fariintayda iyadoo maqal iyo muuqaal baan anigu ingiriiska gaarsiiyey 12 Juulaay 2009 iyo 19 Juulaay 2009 labada jeer laba meelood kala duwan oo ku shiray intii ka dambeysana telefoon iyo email iyo xiriir aad joogta ah ayaan la lahaa waxaan insha Allah maanta jeclahay farax nooga mahadcelinayaa message-kan aan maanta idin soo gelinayo waxa weeye hambali ah guusha maanta ee Noor Foundation qaatay oo u fadhina dowladda inay asaaskeeda leeyihiin rayidka waad ku hambalyeynayna waxaan leenahay insha Allah bidilaahi kariim balidadan waa ka soo farxalanay waxa loo taagan yahay maanta mashaariic ka muhiimsan oo ay insha Allah ka wada xiriiri doono iyo mishanka bilaabna والسلام عليكم عبدي سؤال بان ku weydiinayaa iskuulka Baladina ka dhigaysaan shirkadda dhisaysa waxa la yiraahdaa Levan Training Company waxay soo bandhigeen inay ku kacay iskuulka $45,407 oo lacagta Mareykanka $20,400 ay company-gu waana la siiyay embedded waxa ama lacagta aan la bixin $25,000 sidee rabtaan inaan shirkadda lacagteeda ku siiso ayaa sababay بسم الله الرحمن الرحيم
lacagtaas 30 kun waxay ahayd pledge ama ballanqaad radio ka bixiyo 20 ka mid ah 20 kun 400 ka mid ah waan soo gaarnay waxaan noo harsan waa 10 kun inta hartayna insha Allah billahi kareem Noor Foundation iyada ayaa ka maysa waana dambixinaa inkaas sida ay sheegaan reer UK ama anigoo ka madaxay aan ognahay donationka anagu aan sameynay wuxuu ahaa $30,000 dalka Sweden $8,000 bay bixiyeen marka lacagtaba waxa u dhaxaysa waa $7,000 ku halay ka lacagtaba in xagga UK ka wada soo زيادة الخير خيرين بين العرب زيادة الخير خيرين أنقو دائما مركي أنا قلنا إلا هذا وحنا كنت شان إنه وقت كي مركز تجرب كو UK بأبوه الرئي كو إمارات كأبوه الرئي كو UK بكحجي عليس كان ما هم ضد جارة صارن وعمد الموضوع صارن ولا هي ما دام صدق كنا قادين وعليس كاس جاري وحنا إن شاء الله كرجينا إن هدي وحكي مع ذا of course إحنا دينا يومها لكن مدانو حتى أنا قلت تلقى أهان لا تلقى لي ما يهاي وأنا قم هذا علينا أنت نسوي كذي أنت ناسوس أوكي ما دام أتى مدح النور فاونديشن النور فاونديشن واحد استعمال بنك ليرات لويدس أما الله غير وقتك يروح بلاك هورس أما فرس كلمة ما هذا نود وحنا كل شيء إن لقرصينا يعني بنك قال لي سببت لوجا جوري أنا أيتهاي وحكاه وقال ذلك بريتن وكلية وحاجر بنكية سكر يروح فكرة هان محاكو بيرينيسا marka akoonka la guuray oo ay khatar tahay in la lumiyo dad ka badan 70 customer oo bil kasta Noor Foundation siya lacag mu'asasadu waxay yeelan kartaa xisaabo badan waxaan qabaa anigu tala ahaan u soo jeedinaya inaan laga guurin bangiga laakiin sida ay Noor Foundation imaaraadku leedahay ilaa 3 mu'asasadood oo kala duwan ama xawaaladooda ay la macamil haddii ay noqotay in ay ku adag tahay walaalihina Yurub kala jirto in lacagta soo gaarsiiyaan Lloyds Bank waxaan ku talin lahaa in xisaab cusub loo furo bangi cusub laga furo markay ku soo ururtaan lagu soo xawil xisaabta raysiga laakiin marna inaan la dhumin 70 ka qof oo ah yani mira kuwa gacanta إن سألتم عن إلهي فهو رحمن رحيم أنزل الشرع حنيف